wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa furay shirkii 3 biloodlaha ahaa ee waxqabadka iyo qiimeynta waxyaha wasaaradda horumarinta maaliyadda kulanka oo ka qabsoomay xafiiska wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa agaasimo waaxid kastaaba waxa uu ku soo madhigay waxqabadkii 3 bilood ee ugu dambeeyay waxyaabihii u qabsoomay waxa dhiman iyo caqabadaha ka hor yimid wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo furitaankii shirkaasi hadalka jeediyay waxa kamid ah hadalkiisii wasaaradda maaliyaddu waxay hormuud ka tahay dabaqaadda amba dhaqangelinta amba fulinta maamul wanaagga wuxuu leeyahay 3 tiiro waaweyn waa qorshaha iyo fulinta iyo qiimeynta amba dabagalka shirkan maanta isugu nimi waa shir aan ku qiimeynayno hawshii noo fushay 3 bilood u dambeeyay April ilaa June sanadkii 4 jeer baanu qabsanaa shirkan oo kale saanu ugu qiimeeyno marba halka xaaladdu ay marayso aan haruugu ku shaqaansano wixii naga dhiman saxano wixii mataqaanaa naga khaldan dabaqno wixii wanaagsan aan ku talagalay marka waa shiraadi aad u qiimo badan waxaan doonaa munaasabadan ka faa'iideysanaya inaan si hordhaca uga mahadceliyo agaasimeyaasha iyo saraakiisha wasaaradda hawsha qiimaha badan ee adag ay gacanta ku hayaan